wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ayaa sheegtay in kiisas kala duwan oo intooda badan laga helay gobolka Banaadir ay diiwaan geliyeen 48 saac ee la soo dhaafay kadib markii la baaray dad looga shakiyay. tirada dadka hubinta maray ayaa 1338 ruux guud ahaan dalka, waxaana xanuunka jirkooda laga helay 257 bukaan oo 255 ka mid ah ay ku sugan yihiin gobolka Banaadir, halka labada ruux ee kale ay kala joogaan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle. wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in kiisaska laga diiwaan geliyay ee xanuunka COVID-19 ay muujinayso soo laba kacleynta fayraska oo u baahan in taxadar dheeraad ah laga sameeyo. waxay soo jeedisay in aan la fududeysan kiisaska maadaama toddobaadyadii la soo dhaafay koror ku yimid tirada dadka cudurka laga helay, dadka caafimaada iyo kuwa u dhintay, sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. tirada guud ee COVID-19 diiwaanka Soomaaliya waa 5889 ruux, waxaana ka caafimaaday guud ahaan 3757 bukaan, halka ay u dhinteen dad gaaraya 194 ruux tan iyo bishii Maarso 2020 kiisaskii ugu horreeyay dalka laga helay.